haddii amisom ay baxdo ama international community-ga ay iska tagaan Soomaaliya waxaa qabsanaya al-shabaab fikirkaas waa fikir la iska yiri waay sababtoo ah competency-ga iyo dadnimada al-shabaab markii loo fiiriyo Afghanistan Taliban ma dhama macnaha rubuc ma dhama sababtoo ah Afghanistan sida uu wadaadkaas doctorka ah sheegay culumaa hogaamisa waa dad markii la fiiriyo nationalist ah oo dalka inay taxriiriyaan oo ay ka saaraan ciidamada shisheeye yimid ku dadaalay inta ay joogeen oo intaanan Amerikaanku u galin iyo taxaalufkiisana qof ay gaalnimo ku xukumeen ma jiro bal la joogi jiray meesha nimankii Uzbekistanka asalkooda uu ahaayo Ahmed Shah Mas'uud uu hogaaminayay la diriri jireen dawlad hore ka sii horreysay Burhanuddin la diriri jireen intaba inay gaaleeyeen kuma jirin marka dadkooda iyo struggle-kooda wuu isla socday mar walba wuxuu ahaa struggle oo Afghanistan uu hogaaminayo ayuu ahaa laakiin meesha wiilal yar moogtahay aqoon diimeedna aan lahayn dadkoodana ka fogaaday because dadka ideology-ga keenay xitaa fikirkan ayaga dilay dhaxdooda dilay intimaagooda marka akhrisid meelahay ka soo bilowdeen al-shabaabka oo ugu horeeyay al-ittixaad oo kale ama al-i'tisaam oo kale nimankii isku dayay in initiative islaami ah la keeno culimadii markay aragtay waxaan inaan la wadi karin waa ka hartay niman dhalinyaro oo kuwa ka go'ay ayaa soo waday fikirka ilaa markii dambe ay shabaabul mujaahidiin la imaadaan dadkii asaasay la dilay marka fiiraysa marka ciidan ahaan Afghanistan waa la qalabeeyay 300 iyo 300 kun oo ciidan baa loo dhisay hub fiican baa la siiyay diyaaradaha la siiyay air force-kooda waxaa la sheegay inay 100 diyaaradood wax ka badan oo bombers ku jiraan gunships ku jiraan loo sameeyay laakiin mar walba meesha la rabo madax Soomaaliyeed inay ka fiiriso waxa weeye Soomaaliya ciidankeeda lama dhisin qoriga loo ogol yahay oo ciidamada inay qaataan waa 12 mm waa dhishika qoriga la yiraahdo cadawgana ka soo kala wataa marka waxa la rabaa in miirka soo dago oo dad muwaadiniina oo wadaniyiina oo dalka ka naxay ay yimaadaan because waxa dawladda Afghanistan ku dhacay annagana waqti walba ay nagu dhici karaan la fariisto laga hadlo war dalkani maxaa u ah strategy oo nabadiisa iyo defense-kiisa lagu soo karaa si holistic oo dadka dhan ay ugu qayb galaan ciidan marka identity leh oo dalka u dhaaranay oo dalka u dhimanayna la dhiso la qalabeeyo moogtahay qalabeyntiisana adduunka banka uu saaray hubka Soomaaliya in laga qaado xirfadda ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed la xoojiyo ciidan yaa dhisa marka ciidan 300 kun oo diyaarado wata ayay Amerikaanku dhiseen Trump baa hadlay wuxuu yiri waxay rabeen annaga inaan u biilno ciidanka meesha ku hayno ciidan cid ku biilaysa iyo cid ku dhisaysa ma jirto ciidanka waa in dadka Soomaaliyeed ay tax bixiyaan shacbiga Soomaaliyeed laga dawlad amaana leh la helo dawladda ay dadka ka aruuriso canshuur ciidamada la siiyo moralka ciidanka wuxuu ku dhismaa afar qodob ku dhismaa sidiisa ciidan wuxuu ka dhismaa tababar wuxuu ka dhistaa infrastructure iyo qalab wuxuu ka dhismaa moral wuxuu ka dhismaa identity oo cidda uu dagaalamay inay wada inta markii in la fariisto dawladda ay fariisato ay ka hadasho hoostana ay ka xariiqdo ayaa lagu gaari karaa ciidan Soomaali ay leedahay oo exit strategy-ga AMISOM wadanka kala wareegaysa nabada